waxaa jira filim maxaan ku rahdaa isheeg laga sameeyey oo la sii daayay 4 bishii February sanadkan 2016 waa bil ka hor maxaan ku rahdaa isheeg filimkaas oo dhabaantii waxa ka muuqda ay ahayd aan isboogin sababta keenay ay ahayd sabab jirdil ah oo la geystay 14 bishii January ayaa la qaaday xarunta xalana oo joog Lira Joe oo FBI da CIA da Afrikadan u haysto gaar ahaan Soomaali u haysto Mareykanka ayaa joogay sabti ayaa lagu jirdilay dabeeto wuxuu igu yiri aqbal wareysigaas waxaan ku yiri ma aqbali karo ma sheegay ka waxa aad rabtay inaan kuu sheego dabeeto dad hoose oo meesha ku yaalo oo biyo ku la yiraahdo ayaa lagu xareeyay ماشي أيانا اللي وصل عيي وحقيقي مثل اللي يرادو ذكر عيي وحقيقي مثل اللي يرادو ذكرية أو ذكي عن الشام وكل شيء عن مقالي وعويري نيو وقادم هنا يا رجل وحقيقي روانا سيفوضي وحنقولي المئي سروبي سائل عن أفوضي سيدا أي روان ويهي لنكران أديو حوالي صدبادي أبكودي 6 دقيقة أي دلسي اللي يدعي وبينمو خلاص اللي أكون حنا يوم يحتوي أيانا اللي هو على شيء لحي كلام كي بشيء جنوري أيانا دعضي waxaan ku raacin leela soo baxo sida fadhiga madaxtooyo wala garaacay aad baa la igu garaacay waxaan ku raacay Zakariya ayaana darmeesha igu yimid oo igu yiri taftii ayaa jiran Soomaaliya ku adkeen jugta ugu dhacaysa heere waxaan ku raacay sheekh dacwad oo la soo shiiday in madaxa la igu geliyo waa dhacday in dacbiya madaxa la igu geliyo way dhacday in maxaan ku raacay la igu hanjabo in sheekh qoomulnimo la igu sameeyo doonano way dhacday markii dambe ninkan ayaa wuxuu yiri waxa soo dhana ka fakinayo iyo iska fuuday waxa lagu leeyahay ninkii gaalka ah isku diro ogtahay kan kuwana waa Soomaali iska fuuday marka sidaas ayaana maxaan ku raadayay barnaamijkii uu fuuday in kaamiraas laga duubo ninkan Zakariya Zaki aan u naqaanayna isaga ayuu shakhsiga email-inay wadadaan mar sidaan su'aasha lagu weydiin doonaa sidaan ugu jawaab su'aasha lagu weydiin doonaa sidaan ugu jawaab ninka email-inay ahadkan maxaan ku raadayay hore xarakada ugu mid ka jiray ayuu ahaa markii aan aqbalay videogaas waxaa soo diyaar garoobay nin la yiraahdo Cabdi Afrika oo televisionka qaranka waxa loogu yeeray ka shaqeeyo waxaa laga qaaday xalane kadib magaaladii ayaa laga qaaday ciidan badan sidii iyagoo wada xasan galmudug oo kale ay maciida Cabdibilaa iga dhigeen oo jeesjeedaysan soo ay iminka ii dhiibeen xataa oo faaruq ah oo qasabaan iyo xabadaan ah kadib ayayna dukumiinti aan iga diyaareen oo ay soo deeyeen sidoo marka la duubayay waxa way joogeen in leeyahay Zaki iyo Cabdi Afrika iyo Forno iyo nin la yiraahdo Abdiraxmaan Caato oo kaliya hogaanka baarista Soomaaliya igu yeereen filimkaas waxyaabo badan oo aan ku yiri oo aan dhahay oo aan iga soo roobin waxa ay ahayd wax leeyahay oo sidaas ugu soo socoto sidaas ugu jawaab lay oranayay marka ilaahay kuma darnaade waxaas wax leeyahay marna igama soo roobaan waxa kaloo video ku jira cod aan ugu hanjabay Cabdiraxmaan Cadaala oo laba dhacdo ayaan ka waramayo oo dhacdo lagu dilay xasiis absuge in la yuriyahay oo erigaas maxaan ku degmada qordhigle inay tahay xajinay lagu dilay iyo mid kale oo la dhaayay asagar maxamed labada codba waxay ahaayeen cod jil laygu yiri waxaana goobta aan ku jiray joogay mid Cabdi Afrika ninka la leeyahay Cabdiraxmaan Jino Traffic oo taliyaha hogaanka baarista waxay ugu yeereen groupka shaqaalaha Zakariya oo asay Zaki aan u naqaanay nin la yiraahdo Forno oo asayna cameraman ahaa nin la yiraahdo Cabdikariim oo xawaale oo taliyaha maxaabiista xabsiga madaxtooyaha inta ayaa meeshooda joogtay casirkaana oo casir la yiri ku dhex ninka kan telefoonka aan oo la dhiibo oo telefoon oo Cabdiraxmaan Jino Traffic Cabdiraxmaan Caato la yiraahdo taliyaha hogaanka baarista ah ninka telefoonkiisa ayaa ku hadal la yiri codka aan jiray labada marba aan jiray ee ahaa maxaan ku raadayay shaqadiisa asbuga dilkiisii iyo ninka maxaa gaaray hatta sida maxaan ku raadayay email oo waxa yiri ninka la yiraahdo Zakariya oo maxaan ku raadayay sheekh Zaki aan u naqaan ninka ayuu ninka email
ولا أساس كله أنا عبد الرحمن إنك اللي هندي تجيب ما الحين عودك شرم محكمة اللي يوصارنا عودك أي هاي لكن عودك صحوا هاي عود عن جد ومعان كله شبرت عن كل شيء تلفون كاسمون قال dadka ila joogna inta ay soo sheegay weeyaan wallahi waxa kale oo ogaataan in waxyaabaha laga qeexay ayuu hayso haddana noo jirin inay wax haddana ay maxkamad wixii jilay maxkamadda ay soo qoreen oo xataa ay fasiraadkooda ka mid ka aan ku leeyahay ay ka mid tahay inay fasiriyeen waxyaabaha cadeynta ay ka mid tahay iyagii loo sheegay iyagii ay u qasbeen oo jiro iyagii ayaan haddana maxkamad cadeyn ahaan ula soo dhistay waa ka saasano yiridahayo marka fasiraadkooda la yaab kala ee aqal shalay sidaas weeyaan oo maxaan ku raadayay sheeg in codkii jiray haddana markaati ay ka soo dhigteen oo ilaa waa ka saasano la dhahay oo maxkamadda la hordaaray ay joogaan dhammaan saxafiyiintii Soomaaliyeed kuwii iska jiray Muqdisho